بسم الله الرحمن الرحيم waxaanu ahay laba guddi oo hawshan muddo soo daadihinaysay marka waxaan si kooban u akhriyaa qodobo kooban oo aan isla soo ururinay oo 6 qodob ka kooban beelaha walaalaha ah ee wada degan gobolka Sanaag oo in muddo uga socday shirka nabadda ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland dhigay magaalada Cerigabo goboshiisa waxaa ka soo baxay qodobadan kow in nabadda iyo walaaltinimada lagu wada noolaado guud ahaan gobolka Sanaag iyo degmadiisa Cerigabo laba beelaha walaalaha ah ee wada degan gobolka Sanaag waxay isla qaateen inay ilaashadaan nabadgelyadooda wada jirkooda walaaltinimadooda iyo dawladnimadooda Jamhuuriyadda Soomaaliland saddex waxa beelaha reer Sanaag isla qaateen in nabadda loogu baaqo lagana hawlgalo sidii loo raadin lahaa cid kasta oo ka maqan gogosha nabadda ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland dhigay afar maadaama gobolka Sanaag ay ka muuqato dib u dhac dhanka horumarinta ah beelaha gobolka Sanaag waxay xukuumadda Soomaaliland ugu baaqayaan in ay ka fuliso mashaariic horumarineed sida ugu dhaqsaha badan haddii Ilaahay ka dhigo shan waxaa lagu heshiiyey in guud ahaan amniga iyo nabadda gobolka Sanaag ay dawladdu ka mas'uul tahay cid kasta oo nabadda cadow ku ahna ay dawladdu gacan bir ah ku qaban doonto iyada oo kaashanaysa shacabkeeda lix waxay beelaha gobolka Sanaag uga mahad celinayaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland gogosha nabadda ee uu dhigay gobolka Sanaag iyo isku wadka bulshada Soomaaliland ee uu sida hagar la'aanta uga shaqeynayo Allah mahad leh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.